gudoomiyaha xisbiga wadaniga gobolka Soomaali Cabdi Yuusuf Ismaaciil oo maanta wareysi gaar ah siinayay Ariel TV ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda guud ee Somaliland sidoo kale waxa uu taageero u muujiyay hadal ka soo yeedhay gudoomiyaha xisbiga wadani xumada kulmiye ay halakaysay amni xumada waliba loogu daro imanka waxay maraysaa in la xidhxidho salaadiintii iyo abwaanadii in xariga laga qabto ay marayso horta waan uga taxseeninaa arintaas gudoomiye waa ku salaamaya baaqi shalay siideysay waligaaba waa siideynayay digniinta ummadda reer Somaliland iyo dhibaatada haysata waad ka hadlaysay laakiin dhaguma ay jalqsiinay horta in dabada iska kulmiye iska raacanayaan maanaya laakiin wax badan baad u digtay adiga oo gudoomiye baarlamaanaba lagu soo weeraray marka tidhi war DB wall itusa waxa ay sharciga ay nidaam wax ku nadaaminayso baa lagu weeraray adoo xildhibaan gudoomiyaha xildhibaanada waa ka wixii ka dhacay waa looga guurtida tiir ka dhacday ee kale ee ka dambeysay waa la garanaya mar walba xisbiga wadani waxa lagu la dagaalamayay natusa sharciga DB wall iyo nidaamka Somaliland meeshu marayo maxkamadii marjaca ahayd ee loo noqon lahaa marka golayaasha laga quusto xataa golihii guurtida ma hayno oo kii baarlamaanka waxaan ka hadli jiray ma jiro runta hadii laga hadlo wali miyaad maqasheen waxa yeelimayno iyadoo lagu codeynayo ma jiro weey marjaca ugu dambeeya maxkamad buu ahaan jiray isagii iyadiina lama hayo waa okay waa run leh kulligood dadka reer Somaliland wadani buu ahaa boqolkiiba waxaan oran karaa 85 baa gobolada caalanka sidatay wadani codkoodiina lama hayo kumishin baasay dhag laguma jalaqsiintaana de halkii cali dhuux baynu taaganahay horta ka hari mayno intaynu daba firigfirleyn karno waa daba firigfirleynna waxaanu leenahay ilaahay ha soo hadeeyo xukuumadda jirta in ay hadalka sax ah maqasho ummadda reer Somaliland waxaynu u dignay wax fara badan ka helayno maamul wanaagsan ilaahay laga dooranayo waayo wanaaga markaanu sheegnaba in xumaan loogu bedelo leedo Soomaaliya ay rabaan iyo meel kale ay u jeedaan dhinaca kale gudoomiyaha ayaa eedeymo dhanka amniga u jeediyay maamulka guud ee gobolka Sool rag doorkii gobolka Sool laamigu yaalamay dhigiisi haddeeraanu leenahay maamulka gobolku wuu ka sii liitaa gobolada kale waliba haddii wax laga qaban waayana waa laga hadlayaa waanu ka hadlaynaa waana ka hadli doonaa waana ka hadlaynaa habar baa ugu liidato oo haday habari maanta wax disho iyada ugu gaabisa ummadda maamulka gobolku ma soo qaban karo waanu ka hadlaynaa dilka mar walba dhacaya ee dhiigii oo qoyan ninkii oo magaalada jooga aan la soo qabanayn haddeeraanu ka hadlaynaa waa maamul xumo kor iyo hoosba jirta Ismaaciil Haradigeed Ariel TV la saano